السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan rabaa saddex talo inaan siiyo oo ah qofka dhalinyarada oo wax bartay. waxaa la dhahaa triangle-kan waa inuu qofka aad u ilaaliyo intuu nool yahay. waa kow, qofka muslimka oo dhalinyarada ah waxaa laga rabaa inuu diintiisa wax ka barto, cibaadadiisa ha noqoto, tacaamulaadkiisa ha noqoto. kow, diintiisa waxbarashadiisa kitaab ka mid ah waa inuu akhristo. labo, takhasuska ku takhasus, hadduu shariico yahay, hadduu yahay caafimaad, hadduu yahay engineering dhisme iyo wixii la xiriiro, hadduu yahay siyaasad, waa inuu kitaab ka mid ah akhriyo. qaybta saddexaad waxaa waaye in aqoon guud aa akhriso. waxaan shariicada islaamka oo adiga khusaysa ugu muhiimsan ahayn iyo waxaan takhasuskaada ahayn yoomigaada samaynayso. wax saddexaad oo guud, aqoon guud, ha noqoto luqado, ha noqoto teknolojiyada aad socoto, waxyaalaha la xiriiro aan takhasuskaada ahayn. hadduu yahay aqoon guud oo cilmiga kale ka qaadanayso waxaan takhasuskaada ahayn, waa inaad asagana hal kitaab oo kale ka akhriso. marka waa inaad bishaada waxa ugu yar 3 kitaab aa akhriso. kitaab diintaada, kitaab oo takhasuskaada ah, iyo kitaab oo ah aqoon guud ah. saddexdoodana triangle-ka saddexdooda, shariicada iyo takhasuskaada iyo aqoonta guud waxaa isku xiraayo u dhexeeyo isku xiraha rasmiga ah waa akhriska. waa salaama. assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh.